tilmaam academy. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada koorskeena imtixaanaha ahaa ee English Vocabulary in Use. weli waxaan ku jirnaa module-keeni ahaa module 5 The World. adduunkiina wax ka ogaano waaye. waxaa laga yaabaa inay aad ku anfacdo haddii waddanka mar ay ka baxdaan inaa ereyadan ay ku socdaan ay u badan tahay. In the town 29 unitkan waxaan ku baran doonaa in the town. In the town magaalada plays in the town. markii magaalada yimaado meelaha ugu caansan ee magaalada markii la isku yimaado maxaa kamid ah erey kasta inaad taqaanid waa macnihiisa iyo waxa uu qabto. bal marka hore aan sal dhageysano ereyadan kadibna aan sharaxaad ka bixin insha Allah. A. Places in the town. Train station Train or station, railway station. railway station, You can get a train here. Bus station. bus station, You can get a bus here. Shops. shops, You can buy things here. Shopping center. shopping center, Area of town with a lot of shops. Tourist information office. tourist information office, Tourists can get information here. Museum. museum, You can see interesting old things here. Bank. bank, You can change money here or get money from a cash machine. Post office. post office, You can post letters and parcels here. Library. library, You can read books and newspapers here. Town hall. town hall, Local government officers work here. Car park. car park, You can park your car here. Pedestrian area. pedestrian area. You can only walk here. You can't come here by car. Alright, bal ila fiiriya plays in the town. waxaan ku bilaabi doonaa hadiiba magaalo aad timaadid meelaha laga raaco tareenada ama basaska. waxaan dhihi doonaa train station ama railway station. waa meesha tareenku ka baxo. You can get a train here. meeshan waxaa ka helaysaa tareenka. Okay, bus station. You can get a bus here. meeshan baska ka helaysaa. so qofka wuxuu ku dhahayaa ama waxaa dhahaysaa meesha baska laga raaco xagee. waxaa dhahaysaa where is the bus station, where is the train station. Okay, shops, dukaaman aad u fara badan. You can buy things here. meeshan waxyaabaha kasoo iibsan kartaa. faahfaahin badan chapter dhan ayaan kusoo barnay. chapter 19 loo yaqaano oo loo yaqaano shops and shopping. so qofkii rabo xagga ayuu ku laaban karaa. Shopping center waa an area of town with a lot of shops. meel dukaamo fara badan ay ku yaalaan oo magaalada dhexdeeda waxaa loo yaqaanaa shopping center. Okay, tourist information office. A tourist can get information here. dadka dalxiisayaasha meesha informationada ay ka helaan waxaa loo yaqaanaa tourist information office. let's say dalxiis aad rabtaa inaad aadid xarad saa tegaysa waxaa leedahay gobol hebel gawaari baxaysa ma jirtaa, hotelka xagee la dejinayaa, how many days meeqa maalin aan soo joogayaa. so information noocaas meesha laga raadiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa tourist information office. waa dadka dalxiisayaasha meesha ay ka helaan informationkooda. museum dadka qaar waxay yaqaanaan matxaf. I think in Arabic tahay matxaf. waa meel lagu keediyo waxyaabaha qadiimiga ah oo aad ku xiiso badan. You can see waxaa halkaas ku arkaysaa interesting old things here. waxyaabaha qadiimiga ah. let's say koox kubadda cagta ciyaarta museumkooda ayaa booqatay. waxay u badan tahay museumkaas inaad kusoo arki doontid 30 sano ka hor laacibiinta u ciyaari jirtay koobaha ay ku ciyaari jireen, fanaanadii ay wadan jireen, waxyaaba noocaas oo kale waa. markaa madaxtooyaa booqatay waxaa soo arki kartaa madaxweynihii hore x 5 sano ka hor, 10 sano ka hor, 100 sano ka hor. madaxweyne x sariirtu ku seexan jiray, bakeeri wax ku cabi jiray, waxyaabahaas oo kale. markaa so museum meel kasta way leedahay. Sacuudi tag museum ay leedahay, Mareykanka tag, Soomaali imaaw museum noocaas oo kale.
waana meel badanaa dadka lacag ay ku galaan si ay usoo arkaan waxyaaba oo historic ah oo taariikhi ah. bank waa naqaanaa, you can change money here, lacagaha ayaa ku bedelan kartaa oo lagu sarifaya, or get money from cash machine, ama waxaa ku yaala ATM ayaa ku yaalo cash machine, then kaarkaada ayaa gashan kartaa, credit kaarkaada lacaga kala soo baxaysaa. post office waa meel la dhigto postada, waraaqaha ayaa lagu diraa iyo ama alaabaha caadiga. You can post letters, waraaqaha ayaa lagu dirsadaa, and parcels here. sidoo kale alaab yar haddaa wadid waxaa ku duubaysaa cartoon iyo koolo iyo waxaasoo kale, then waa diri kartaa markaas. Library, ereygaas waxaa laga hormariyay phonetics, waxaa laga baqayaa in khalad ugu dhawaaqdaan. Library waa meesha lagu akhristo buugaag aad u fara badan ayaa yaalo. You can read books, buugaagta ayaa ku akhrisan kartaa, and newspapers iyo journaalada oo maalinlaha soo baxo ayaa ku akhri kartaa meeshaas. Library, jaamacadaha way leeyihiin library, public librariesna way jiraan. Let's say magaalada dhex bartankeeda ayaa waxaa laga furaya library, buugaag badan ayaa la dhigi doonaa, qof kastana meesha ku akhrisan doonaa. Town hall waxaa loo yaqaanaa waa meel dadka dowladda u shaqeeya ay ku howlgalaan, ay ka shaqeeyaan. Local government, dadka dowladda u shaqeeyo hoose ayaa meeshaas ku shaqeeya. Marka Soomaaliya oo kale badanaa caan ma ka ah ereygaas town hall. Okay, car park, meesha baabuurta lagu baakimo. You can park your car here, baabuurkaada ayaa ku baakamin kartaa meeshaas. Car park. Pedestrian area, you can only walk here. Pedestrian area waxaa loo yaqaanaa meesha dadka lugeynaya ee maraan. Laamiga marka la joogo, laamiga geeskiisa waxaa ku yaalo meel dadka ay maraan oo baabuurta ka caagan, baabuurta looma ogolo. Waxaan iska dhahnaa anaga mishibiyeed ama marshibiyeed oo kale, erey Talyaani inuu yahay laga yaabaa. Baabuur looma ogolo meeshaas. Marka meesha aad maraysid waxaad dareemaysaa inaad tahay safe. Okay, so you can only walk here, waa ku socon kartaa keliya. You can't come here by car, baabuur ma la soo kori karta meeshaas. waa wadada geeskeeda dadka meesha ku lugayaan. waxaan loo yaqaanaa meeshaas pedestrian area. Notice in towns, magaalooyinka waxay caan ku yihiin calaamadahaas lagu qoraa, soo qof heer magaalka oo inuu calaamadaas ka fahmi karaa marka qaar. bal ereyas la fiiriyo marka hore kadibna aan dul istaagna. Notices in towns. Exit. No smoking. Please keep off the grass. Entrance. Out of order. Okay, exit. hoolashan ku aragteen ama hoteelada ama maqaayadaha waaweyn ama dhismooyinka aadka waaweyn, qofka meeshuu ka baxo marka uu waayo ma isdhibaayo, boorkaas ayuu arki doonaa, exit ayaa ku qoran, ka baxo meeshaas. No smoking, dad qaar waxaa jira oo smoking sameeyo, sigaar cabo, so meesha haddii ay ku cabi rabaan waa loo sheegaa waxa leeyahay no smoking area, meeshan sigaar lama ogola. Entrance, meel laga galaa weysay, let's say waa mall waaye, dukaan waaye, wada muraayado waaye, so meesha ka gasho waa weynaysaa, so calaamadana gaadaysaa markaas. Entrance, meesha laga gala meeshaan waaye. Exit, meesha laga baxa waaye. hadda qofkii moolashan taga hadda oo waaweyn, iridda laga galaayo iridda laga baxayo sometimes kala nooc waaye, so midda laga galaayo waxaa ku dareemaysaa calaamadsa ku qoran entrance ku qoran, tan laga baxayna waxaa ku qoran exit, so saas fahmaysaa. alaabaa dhamaatay, out of order, dalabkan wuu dhamaado meena, so badana calaamad sar lagu dhijinaya, then waa iska fahmaysaa out of order, out of stock marka qaar lagu qoraya. meelaha dadka ay ku baashaalaan oo beeraha ah, park oo kale, dadka farina loo faraa oo ah fadlan meeshaan cooska nala ilaali waayo. Please keep off the grass. marka ilaali waaye, cooskaas ha jarin, hanaga goynin, waxyaabahaas kale waa lagu faraya markaas si deegaanka loo ilaaliyo. Asking for and giving a direction, sidee qof u weydiisan kartaa marka direction, sidee qof u dhihi kartaa niyo bangi xaguu ku yaalaa, niyo museum meelaha ma ka dhow yahay, iyo sidoo kale sidee qof loo tilmaamaa, labada waa ku baran doonaa, sidee loo weydiistaa iyo sidee qofka tilmaam loo siiyaa. bal ila fiiriye. C. Asking for and giving directions.
Where is the bus station? Go left here, and it's at the end of the road. How do I get to Market Street? Take the first right and then the second left. Is there a shopping centre near here? Yes. Turn right here. The entrance is on Market Street, on the left. Can I park here? No, but there's a car park on Park Street. Excuse me, I'm looking for the museum. It's on Bridge Road. Take the number 31 bus and get off at the second stop. Can you tell me the way to the nearest bank, please? I need a cash machine. No problem. Go left here and there's one on the other side of the road. Alright. bal ila fiiri horta marka hore maapka inaan isla fahanno waaye you are here qofkan oo tilmaamta ku weydiisanaya halkan ayuu joogaa qofkaas meeshan ayaa taaganta adiga tusaale haddaan isla fiirino baska 31 kulli baskaasaa meelaan ka baxo waaye okay meeshan wadadan waxaa loo yaqaanaa magaceeda High Street wadadan waxaa loo yaqaanaa Bridge Road aa loo yaqaanaa wadadan waxaa loo yaqaanaa Market Street okay tan waxaa loo yaqaanaa Dayton Street taasna waxaa loo yaqaanaa Park Street inta waxaa ku yaalo Tourist Information Office oo hadda aan soo baranay dalka dalxiisayaasha meesha informationka ka helaan shopping center ayaa inta ku yaalo meel dadka ka dukaameystaan parking ayaa inta ku yaalo meel baabuurta lagu baakinto bank ayaa inta ku yaalo bus station inta ku yaala so adigana xagee joogtaan ani halkan ayaa joogta adiga sidoo qof weydiisa marka qof tilmaamta adigoo hayo adiga ayaa su'aalahan ayaa keeni kartaa marka so su'aasha koowaad waxay noqotay where is the bus station ka aawe waa kana adigana xagee joogtaan ani halkan ayaa joogtaa so qof soo dhaysa markii sheeg waa inaan qofkan dhahdaa fadlan bidix u bax iska soco meesha ugu dambeysa waaye waa kana marka go left okay bidix u bax okay and it's at the end of the road wadada dhammaadkeeda ayaa ku arkaysaa bus station okay su'aasha labaad how do I get to the Market Street sideen ku aadi karaa to the Market Street wadada oo loo yaqaano Market Street watana wadadan see lagu aadi karaa so qofkan u dhigi kartaa midig u leexo jidka koowaad ma ahanin jidka labaad ayaa bidix u leexan doontaa markaysaa af Soomaali marka hore halkan ayaa joogtaa waxaa dhahaysaa midig u leexo wadada koowaad ma ahanin wadada labaad tag kadibna bidix u leexo ina dhahal raa markaas soo dhahaysaa markii sheeg take the first right okay midigta ugu horeysa kasoo leexo and then the second left kadibna the second left way kan koowaad ma ahan kan labaad ayaa left u leexanaysaa so qaabna soo sheegaysaa marka take the first right midigta ugu horeysa kasoo leexo and then the second left way bidixda labaad way kan koowaad ma ahan bidixda koowaad bidixda labaad way okay is there a shopping center near here shopping center meelaha ma ka dhow yahay is there a shopping center near here shopping center meelaha ma ka dhow yahay okay yes adesa turn right midig u leexo the entrance is on the Market Street on the left entrance meesha laga galo wuxuu ku yaalaa is on the Market Street on the left inta ayuu ku yaalaa halkan then qaybta bidixda ayaa ka arkaysaa okay qaybta su'aasha kale can I park here meeshan meel ma ku baakiman karaa qofaa wuxuu rabaa inuu meelahan ku baakinto marka waxaa leedahay maya meelahan ma lagu baakiman karo wadadaas Park Street markaad dhaaftid ayaa waxaa ku yaala dhaysaa parking ayaa ku yaalo so I said no but there is a car park like waxaa jiro car park ayaa jiro meel baabuurta lagu baakinto ayaa waxay ku jirtaa ayaa ku taalaa on Park Street marka la joogo wadadaas ayay ku taalaa so qof noocaas u sheegtaba qofaa wuxuu ku weydiiyey is there a pharmacy near here farmasho meelaha ma ka dhow yahay oo ku dhahay kadib waxaa dhahaysaa no but there is a pharmacy on Park Street wadadaas ayaa mid ku yaala okay badanaana qofka intaadan weydiinin waxaa laga hormariyaa ereyadan
irritable. Excuse me. iga raali noqo dhaysa qofka because qofkan xoog ma ku leeyahay adiga ma soo jeedin kartid soo marka hore si akhlaaq leh inaad kartaa. Oh, excuse me. I'm looking for the museum. waxaan raadinayaa oo iga maqan the museum. matxafka meelaha ku yaala iga maqan. kadib qofku ku sheegayaa museumka waa kana marka. For example, museumka waa kana adiga inta joogtaa. So qofku u fududaa waxa dhaysa markii shay it's on Bridge Road. wuxuu ku yaalaa dhaysa Bridge Road. horta qofka maskaxdiisa waa wada xaggiisa. It's on the Bridge Road. horta marka hore Bridge Road tagaraysa. Take the number 31 bus. waxaa qaadan kartaa ama raaci kartaa bus 31. buskan 31 ayaa raaci kartaa. Take the number 31 bus and get off at the second stop. kadibna ugu dego the second stop ugu dego. kan raac waa kana. You are here. bus kan raac. stopka koowaad waa kana. ha ka deganin. stopka labaad uga dega markaas. gawaarida meel istaagaan ay jirto. meel fahantin. marka waa kana marka. Can you tell me the way to the nearest bank please? ma ii sheegi kartaa wadada geenayso. Can you tell me the way to the nearest bank please? bangiga igu dhow meesha igee karta ma ii sheegi kartaa. I need a cash machine. waxaan u baahanahay cash machine ayaan u baahanahay. ATM lacagta aan kala soo baxay ayaan u baahanahay. No problem ayaa laa qofkan. so bangiga waa kaas hadda. bangiga waa kaas. marka u sheeg waxaa leedahay wadadan sii raac dheh kadibna intuu leexda markaas. so no problem. go left here. meeshaan bidix uga leexo. and there is one mid ayaa wuxuu ku yaalaa on the other side of the road. wadada dhankeeda kale ayuu ku yaalaa. so sii soco dhankaas kale waa markaas. markiisa these are very important marka areas inaa aad u fahantaan sidee qof loo weydiistaa sideena qof jawaab loo siiyaa. waxaa tala ah marka markasta in qofka uu ku bilaabo excuse me, where's the pharmacy? Excuse me, is there a pharmacy near here? meelaan pharmacy ma ka dhow yahay. qaab noocaas aad weydiinaysaa. kadibna ereyada inaad taqaanid waaye. turn right midig u leexo. turn left bidix u leexo. go straight hore u soco. haddii inta qofkaas u yaqaano that will be enough. so waxaa dhaysaa go straight, turn left or turn right. That's it. halkaas ay ku gaban doonaa unitkan asagana. si aad u xaqiijisid wuxuu ku siin doonaa exercise oo la xiriira kuwa hadda aan qaadanay. so qofka marka exercise ka shaqeeyo waxa u fududaan doona inuu aad u sii fahmo. then you can practice in real life ku practice gareey markaas. qof weydii tilmaam qof si iyo waxyaaba lamid insha Allah markaa. so sidaas iyo nabadgelyo insha Allah.